halkani oo ah suuqa xoolaha ee degmada Gurceel maanta waxaa soo booqday wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Galmudug agaasimaha xanaanada xoolaha ee degmada Gurceel gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel ujeedka ay wafdigan u soo gaareen suuqa xoolaha ayaa waxa uu ahaa in kormeer indha-indhayn ay ku sameeyaan suuqa xoolaha iyo sidoo kale inay warbixino kala duwan ka dhageystaan guddiga suuqa xoolaha ugu horeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha agaasimaha xanaanada xoolaha ee degmada Gurceel gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Gurceel ayaa waxay ugu horeyn kulamo kala duwan la qaateen qaar ka mid ah xubnaha ugu sarreeya guddiga suuqa xoolaha ee degmada Gurceel kulankan ballaaran oo dhaxmaray xubnaha guddiga suuqa xoolaha iyo sidoo kale agaasimaha xanaanada xoolaha ee degmada Gurceel iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaana waxaa looga hadlay qodobo muhiim u ah suuqaani kadib markii ay soo dhamaadeen shirarkan kala duwan ee u dhexeeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Galmudug agaasimaha xanaanada xoolaha iyo guddiga suuqa degmada Gurceel iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya degmada Gurceel oo ugu horeeya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha xanaanada xoolaha ee degmada Gurceel Dr. Saleeman Maxamed Saalax asagoona ka warbixiyay kulamadii maanta waxay ku saabsanayeen iyo ujeedka safarkaani maanta oo taariikhdu tahay 30 bisha Abriil 2023 wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha gudoomiyaha degmada Gurceel gudoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Gurceel iyo xubno ka tirsan dhaqaatiir ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan booqasho ku nimid suuqa xoolaha magaalada Gurceel runtii suuqa xoolaha magaalada Gurceel waa suuqa ugu weyn bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya wuxuuna xudun u yahay suuqani ilaa iyo magaalada Ceeldheer ilaa magaalada Galcad ilaa Lababaar gobolka Galgaduud oo dhan waa suuq center u ah xoolaha qaasatan ariga waxaa lagu qiyaasaa maalinkii inay timaado ugu badnaan 1,000 neef ugu yaraan 300 oo neef suuqan waxaa dhisay hay'adda NRC waxaana qayb ka ahaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhirta iyo daaqa Galmudug suuqu wuxuu shaqeynayaa muddo 2 sano ku dhowaad ah waxaan maanta u nimid marka in aan kormeer ku samayno wixii ka halaabay waxyaalaha uu u baahan yahay waana jiraan walow aysan aad u badnayn waxyaalo yaryar oo dayactir u baahan taasna waxaa ku shaqala wasaaradda iyadaana ballan qaada inay wasaaraddu daboosho haddii alla yidhaahdo waxaan kaloo maanta kulan la yeelanay guddiga maamulka suuqa oo runtii rag aad iyo aad u firfircoon oo aqoon u leh maamulka beeca xoolaha iyo suuqa waxayna siiyeen guddiga warbixin qoto dheer oo ku saabsan suuqan dadka ka shaqaysta waxaa lagu qiyaasaa ilaa 500 oo qof oo noloshoodu ku tiirsan tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa suuq ilaahay u gargaaray waxaa waajib ah marka suuqa intaasoo xoolaa iyo intaas oo dadu iskugu yimaadaan in mar walba gacanta lagu haayo oo laga warqabo oo la dayactiro wixii ka halaaba wixii ballaarin u baahan wixii ku daris u baahan taasna wasaaradda ayaa u taagan insha Allahu warbixin waxaan ka dhageysanaa maanta guddiga suuqa haddii ilaahay idinkeeda leeyahana wixii suuqa ka halaysan waxaa u taagan inay dayactirto wasaaradda iyo weliba degmada runtii dhinaca maaliyadda waxaa gacanta ku haya dowladda hoose ee degmada Gurceel waana waajibkeedii rasmiga ahaa laakiin siyaasadda suuqa iyo hagiddiisa iyo ka warqabkiisa waxaa iskale wasaaradda xanaanada xoolaha maanta booqashadeenu sidaasay ahayd aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u nimaadno suuqii oo shaqaynaya guddigii loo magacaabo shaqaynaya dadkii ganacsatada ahaa oo hawsheedii wata sida uu sheegay agaasimaha xanaanada xoolaha ee degmada Gurceel suuqan waxaa lagu kala iibsadaa xoolo laga kala keenay dowlad deegaanka Itoobiya iyo qaybo badan oo ka mid ah Galgaduud